السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. sheer dhah walaalayaal soo dhawaada. laafiro degdegan soo galay, xoogaa farriin yar baan ka tegayaa, bal hadduu ilaahay yiraahdo dadkana waan soo qabanaynaa. soo dhawaada soo dhawaada. sheerta ku qabta. asalaamu calaykum abti muhalito, soo dhawaada. xukun hunna aad baan kuu salaamayaa, soo dhawow abti, soo dhawaada. maxamed abti aad baan kuu salaamay adiga laftarkaaga. kolley baryahan life maanan soo gelin waayo mashquul badan baa iska jiray. aad iyo aad baan idin salaamaya bulshada sharafta badan, ummadda Soomaaliyeed meel walba adduunka ka joogtaan waa salaamantihiin. kolley lifeka markasta baahi baa keenta. maanta maalin aan uga baahi badannahay midnimo ma jirto. dad badan baa aad u faraxsan oo dabaaldegaya. runtii farxaddu waxay tahay sababta loo faraxsan yahay, dad badan oo aanan fahamsanayn baa jira. sidaa awgeed inaan uga dhacno farxaddu waxay tahay, iyo sababta farxadda hadda keenaysa inaanu faraxsanaano oo aanu mataqaanaa qiira iyo farxad aan muujino. sababta keenaysa ayaanu rabnaa aan ka hadalno. midnimadu faa'iidada ay leedahay, midnimadu iyay dan u tahay. midnimadu hadda aanu abaabulayno ama aan rabno dadkeenu inay gaadhaan, ma waddanka China faa'iido u tahay, ma Ethiopia faa'iido u tahay, hadduu ilaahay ku reebo ma Eritrea faa'iido u tahay, ma Tigray faa'iido u tahay. midnimadu laftirkeedu maxay tahay? midnimada dadku maxay u yaqaanaan? soo dhawaada. waa dad badan baan soo qaban doonaa. ninkanaan soo qaban, ninku nin abtigayo bal isagana aan wareysano. cabdullahi abti khadka culus baan u malaynayaa. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. calaykum asalaam waraxmatullahi wabarakaatu. abti aad baan kuu salaamaya, iska waran. أبتي آد بان كاغا قاضي الحمد لله آد بانو وناكسنا هاي إذا أديك يو وحوي أصحابتك وداونيسا آد بانو داون آد بانو سلامية. salaamullahi calayk abti, soo dhawow. kolley hargeysa ayaad joogtaa. adoo waxaa arkay meel kusoo qoraya dadku maxay la faraxsan yihiin, may xaroobeen. marka runtii commitigaaga aad baan ula dhacay. macnihii farxadda iyo soo galeetiga jabhadda xoreynta jabhadda ONLF. maxaad u aragtaa? maxaase dareenkaagu muxuu yahay abti? bal intaas xoogaa fursad baan ku siinay. واي ها أبتي هرتا آد بادو محاسنتهاي آد بادو محاسنتهاي إن هرتا أنيقو مدنا مسيريو إن لحروبي أو كلالكا وحروبي أو ديغا محوي ديغان كصوماردو xornimadii aynu doonaynay uu helay anigu ma aaminsani, laakiin waxaan aaminsanahay in culays dhacay oo waxa weeye tacadigii ummadda lagu hayay iyo mushkiladii iyo gumaysigii bareerka ahaa ugu yaraan maanta uu dabcay. ugu yaraan maanta dadkii la dhageysanayo, ugu yaraan maanta dadkii xornimada u dagaalamaya ay waxa weeye si nabada deegaankii ku joogaan, in ugu yaraan dadka fikradoodii maanta ay badhigi karaan oo dad xor ah oo waxa weeye si xor ah u hadli kara ay yihiin. marka taa laftigeedu waa xornimo bilowgeed baan aaminsanahay. laakiin waxaan ka soo horjeedaa yacni in la buunbuuniyo oo la yiraahdo dadka la hanjabiyo oo la yiraahdo inta aynu doonaynaba intan ahayd. anigu ilaa iyo deegaanka Soomaalida waxa weeye dawlad madax bannaan oo calankeeda ka taagan oo masiirkeeda iyada u tashanaysa aan arkayo, ma aaminsani in meeshaas xornimo ka jirto. waxa weeye xornimo madax bannaan oo taam ah oo Tigray iyo Oromo labadaba ka madax bannaan. waxa weeye abi iyo aniga ma la sanaawi iyo no difference wax farqiyo aniga iga kala yacni inay xukumaan
ay ugu kala duwan yihiin ma aaminsan taasi waa taa in talabaad aan hadalkii ugu soo koobay waxa weeye dadka deegaanka dadka meesha degan waxa weeye waa nimco walba nusqaanteed leh baa layidhi marka nimca timaadaba nusqaan baa timaada in dadkii shalay ahaa yacni dhibaatadu ay wada haysatay waxaad moodaa maanta inay boqol faraarood kala yeesheen oo xataa reere aanan weliga maqal baan maanta maqlay oo abti aan yaro kaftame oo rabash soo kordhiyey marka صح waxa weeye reerannimo iyo jufa-jufayana waxaana ha la iska daayo dadku waxa weeye danbay wada leeyihin anigu waxa weeye marka hayb la yidhaahdo dadka deegaanka degan baan ka mid ahay oo dadkaygu ay joogaan laakiin waxa weeye iima kala duwana dee dadka soomaaliba u yaqaana ninka oramada soomaaliba u yaqaanaa ninka meesha jooga yaqaana dee midna uma yaqaana ree hebel midna ree hebel uma yaqaano marka iyaguna inay midnimo muujiyaan oo waxa weeye wax soomaalinimo ka sokeeya oo ay ku wada hadli karaan ka fikiri karaan inaanay jirin صح ni afrikadan khadka ilaahay ku inkaaray cabdullaahi xidig abti aad baan kuu salaamay weli khadka ma ku jirtaa runtii aad buu u mahadsan yahay ninkaas oo abtigay waa nin mataqaana gobolka jarar ka soo jeeda waa daroor degmada daroor buu ka soo jeedaa hadduu xitaa uusan ka soo jeedin deegaanka xaq buu leeyahay inuu ka hadlo waana ah uu ku mahadsan yahay ruux meeshii macnaha dhulkan lagu sheegaya soomaali baa iskale aan waxaan aaminsanahay layasa iyo kuwan layasinba inay deegaanka ay degmo ama tuulo ku leeyihiin waan aaminsanahay xataa haddaysan tuulo ku lahayn ama degmo ku lahayn inay xaq u leeyihiin inay aayakatashiga dhulkan maqan ama dhulkan dadka rafaadsan inay ka hadlaan inay u doodaan inay u hiliyaan macnihii in dadkan in loo heliyo waanu jecelnahay haddana waxaad moodaa sibaa looga xigsadaa soomaalida kale taasina ma fiicna nin mataqaanaa ruux soomaaliya ka xigsanaya deegaanka soomaalida hadhow waxaad maqlay isagoo jifadiisa jifo kale ka xigsanaya jifo u dhow oo ilmaadar yihiin oo haddana ka xigsanaya aad arkaysaa marka dadka had iyo jeer wax xigsada ama wax mataqaanaa fogeeya bulshadanada meel boos ma uga bannaana waayo siduu hadda uga xigsanaya ruuxa kale soomaaliga ayuunba hadhow ku inaadeerkiina uga xigsan doonaa tuule hebel aad iyo aad baan runtii shucuurteeda u kacsan tahay anugu waxyaalahan ku faraxsanay waxaa ka mid a macnihii anugu hadda kumalihii xornimaan u helnay waanu dabaaldegaynaa dadku waxay la dabaaldegayaan macnihii 10 sano ee ugu dambeysay dhibaato lama filaana ayaa dadkeena ku dhacday dhibaato aysan filanaynin dadka ku dhacday marka dhibaatadii oo hal mar keliya muddo yar gudaheeda subxaanallah ilaahay waa qaadir muddo yar gudaheeda ayay dhibaatadii ku baxday muddo yar gudaheeda ayay mataqaana ciidankii juxo ama onalef ay ku soo galeen waddanka muddo yar gudaheeda ay dadkii mataqaana nabad ku heleen muddo yar gudaheeda dadkii ay xariitul qol ku heleen mamar xasnaa dadkaniyo xikmad ilaahay baa ku jirta markii ilaahay saa ugu soo tuuray ila dadku waa oomanaa waxay lahayn xornimaan u oomaneen hadal yaroon xitaa aan dhahno oon aan wax ku bogaadino ama wax ku dhalino ayaan u oomaneen waxaan u oomaneen maanta in si xorriyadaan dhulka u soconno wixii oo dhan markii ilaahayna siiyeen waxaad moodaa inay naga tanbadatay marka dadka raba ele xornimo weli lama helin ama iyagu u arka xornimo يعني رياكشن كودا dadka qaar way inta yarta hadda arkaysaan anagu xornimo kulli xornimo ma arko waxaan ku farxsanahay dadkaas ku soo noqday iyo nabada ay raacdaan ku farxsan laakiin xornimo ma jirto dad ba intaas dhibaysa ay ka tanbadatay aan xamili karin oo galay shaqooyin kale oo loo baahneen wax kale aan ku daraya waxaad ogaataan shariicadu maxay ka qabtaa marka ummad laga hadlayo haddaad aragtaan ummad ilaahay ku salliday xukunkooda ama maanta cabdi ilay dhihi maayo cabdi ilay baa reer xasuuqay oo isagoo ka soo jeeda anu waxaan dhahayaa diintuna qabtaa cabdi ilay ilaahay baa nagu salliday waayo dunuuban ilaahay ka galnaba ilaahay cabdi ilay nagu keenay cabdi ilay reer ma mataleen reer gaara ma u socon nin wuxuu ahaa si indhala dadka u mataqaana u gowracayay nin wuxuu ahaa si indhala dadka u gumaadiyay nin wuxuu ahaa si indhala hablihii deegaanka oo dhan si doona ka yeelay dadkii maatay si doona ka yeelay taana waxa keenaysa ilaahay baa nagu saliday taana dunuubteena keentay marka guushana ilaahay baa loo hubinayaa wixii shar iyo dhibaato iyo anagu aan soo gaarsiinana wax anaga gaabsi xagga naga ka yimid nafteena ka yimid shaydaanka ka yimid weeyaan marka waxaan fursad siinayaa dadkan aan soo qabto xukuna aan ku xijinayaa
mahad shaahur kulligiina waa isoo qabanayaa waxaan u soo galay inaan mataqaana ra'yiga iyo dareenka doon aan bulshada la wadaagno inaan anu aan halo uma soo qaban live kuma soo gelin saaxiibkii ninka ka culus anas shaahur odawaa walaal waan soo qabtay khadkaaga wax ka sii garamaayo waan kuu soo noqon anas alla waad soo gashay assalaamu calaykum anas عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أدب كل سلام يا مدن سيف هاي. walaal aad baan u fiicnahay magacaaga waa jaabuur jaabuur ma daran ma akhrinay xogaa xilli dambe ma أو آخرين مقعدة لوكال كا يعني هوس مقعدة لوكال كا لما بحي. dadka hadda local ka Soomaaliya ku daayo. dadkii style bay noqdeen oo jaabuur waa magac aabe ii waran seef tahay warkaaga xaaladahan. warina jaabuur aad baan kugu fiicnay walaal soo dhawow oo bal dareenkaaga iyo bal dadkeenu say u fikirayaan maanta dadkoo dhan maraba inaan soo qabto asxaabteeda waxyaalo badan oo dhex yaala oo dadku ay sheeganayaan dekana ah in dadku is dhageysto oo sidii hore aan isku dhageysan jirnay iyo halgankii aan ku wada cabdil intuu joogay wixii baan rabnaa inaan soo ragaacino walaatinimadii iyo isku tashigii iyo midnimadii socotay waagii dhaweyd wuxuuna laablakac noqdo ma wanaagsan camalka yar ee waara ayaa ka fiican camalka weyn ee mataqaana intuu haddana imaado haddana zuula markiiba baxa looma baahno waxaa loo baahan yahay camal yar midnimana allah ka dhiga midnimada wax yar maaha macnaheedu midnimo kale haddii ilaahayna waafajiyo wax walba nooga muhiimsan xornimada laftirkeeda nooga muhiimsan aad baan kuu sanaa kusoo dhawaa mudane aad baan kuu salaamayaa boqolkiiba boqol malaa'igta ku salaanto adiga iyo inta ku daawanayso aad baan idin salaamayaa iyo inta ku daawan doontaba waxa weeyaan horta xaqiiqiyan marka la yidhaahdo halgan baa la soo galay ummaddu way soo halgantay anu kulley dadkan adin laftooda ka yacnihi media ka qanimaad ka mid ahayd marka waxa weeyaan barnaamijka hadalka yacni aad u socoto niyow caadi uma fahmin ma midnimada guud baad ka hadlaysaa mise dad wax yar qaldayaad ka hadlaysaa bal in yari kala fasilada raalliya anu ujeedka u soo galo waa midnimada weey marka waxaan u arkaa xilligii hadda abaabulka halganka dhabta ay hadda bilaabanayaan dadku halganku waxay moodayaan inta qori la qaato oo dhiig la daadiyo ma nafta la huro nafta in la huro waxaa ka fiican in maskaxda la huro oo miirka la huro oo dhagaha la huro oo xubnaha jirka oo dhan la huro oo qalbiga la hura ka fiican in mataqaanaa naftuna inkastay darajo sare tahay marka midnimada quseeya oo aduu markaan isku soo weershubno midnimada umankaa laakiin midnimada maxaa ka horeeya lagu gaadho waxa hadda midnimada caqabo ku noqon kara oo san wadajir guda tegi lahayn ujeedkayga waxa weeye gobol ka fiican ma jiro qabiil wallahi qabiil kale ka fiican ma jiro anuu qabiilkan ka dhashay waxaan maalinkan guursanin baan u baahnaanaya inta kale inaan arkin baa laga yaabaa uusan waxba ii tarin jaamacadda igama bixiyaan lacag ima siiyaan maalinkan guursanin baa laga yaabaa inaan dhahmo odayaashii reerka u yeedha marka hadda tallaabada nala gudboon aan u baahannahay maxay tahay walaal adiga ra'yigaaga walaal aad baan kuu salaamayaa aad iyo aad baan kuu salaamayaa mudane fikir aad u saliima lahaysaa maasha allah ilaahay jazaaka allah khayr waxa weeyaan walaal waxaan ku horeynayaa geyiga soomaalida ogaadeen ama soomaali galbeed ama soomaali steed ninbas u yaqaan ha u qaato oo daqaadi jiid waa isla goobtii geyiga isagii wuxuu soo maray dhibaatooyin aad u fara badan oo fac dheer galay ilaa iyo waqtigii la hoosgeeyey ama 54 had baan malayn ilaa iyo waqtigii la hoosgeeyey gumaystaha Itoobiya ilaa maanta halgan buu ku jiraa dhibaato adag baa soo martay gumaysi baa la dagaalamay intaas halganadaasina faa'iidana way keeneen welina hamigii loogu talagalay ma gaadhino faa'iidooyinka kale waxaa kamid ah in khayraadkii la ilaaliyay diintii la ilaaliyay dhaqankii la ilaaliyay afkii la ilaaliyay dhulkii la qaadanin faa'iido badan bay keeneen laakiin dhulku weli xorriyadii u dambeeyay lama gaadhin halgankii ugu adkaa ee u dambeeyay waqtiga dheeraa halgan shacab la oran karo weliba halganka shacab ahaa wuxuu ahaa halgankan hadda ONLF maanta socdo ahaa halganka ONLF weli muuna istaagin shacabkanina 10 sano u dambeeyay waxa ku dhacay dhibaatooyin xoog leh oo inaka dhexdeena la isku adeegsaday oo weligood oo hore ka soo dhacin ilaa iyo waqtigii u horeeyay ilaa iyo haatan taariikhda marka deegaanka dib u eegto aan hore waa soo xisaabto ah hadda inakii baa la isku keen adeegsado inakii baa isgumeynay inakii baa gabdhaheen la isku keen diray nin baa walaashi loo diraya walaashi gumeynay naadeertu gumeynay gabadhii la dhalatay waxa weeyaan markaas ummadani maanta 10 sano u dambeeyay ama 17 sano u dambeeyay si xun baa loo soo gumeeyay gaar ahaan 10 sano u dambeeyay si adag baa loo sii gumeeyay oo iyagii baa istuleeyay maanta maxaa loo baahan yahay markaa maanta waxa loo baahan yahay midnimo maanta muuqata shacabkeeni midnimo maanta ka muuqda jigjiga maanta wax ka dhacay waa la arkay
maanta labadii wiil ee xabad isku ridayay isku ridayaan labadii wiil ee facebooka ka dagaalamayay kama dagaalamayaan labadii wiil ee ma garanaysaa labadii madax ee TV-ga iyo iska caay iyo ma garanaysaa is arkay maanta isma ark way iswada arkayaan dadkii xabsiyada ku jira kumaan kumkaana maanta banaanka u soo baxeen marka maanta maxay nala gudboon kow qodobka koobaad in horta ilaahay lagu xamdiyo maasha Allah ilaahay lagu xamdiyo qodobka labaad inayna midnimadana inooga darin oo inaan isla boodin oo inta quwad ismoodin quwad leenahay oo inuu calamada iyo hawlaha la ruuxay iyo midnimada inta quwad leenahay ismoodno inayna ku kibrinonaan iska daadin inta alxamdulillah naan oo degno oo si uga faa'iideysano qodobka aan ku socdaa waxay tahay in maanta shacabkan laga ilaaliyo wax kasta oo kala geyn kara waxa kala geyn kara maxaa kamid ah qabiilka kamid ah qabiil ka fiican ma jiro ruux walba 9 bilood ku dhashay dadku waa wada Soomaali qof kasta 9 bilood ku dhashay antaan aamsanahay waa taas qof 12 bilood ku dhashay ma jiro qof walbaana waa ummadinay Maxamed qof walbaana waa qof muslim qof kastaana waa qof Soomaali nin kasta ama tuulaha ka deganaado ama gobol ha ka deganaado ama qabalay barka ka deganaado ama guriga ha ka deganaado horta nin walba waxaad ogsoonataa haddii aad moodayso reerkiin inuu gobol dhan leeyahay ama laba gobol leeyahay ama saddex gobol leeyahay xaaraan bay ka tahay waxa ka imo aqalka aad degan tahay caruurtaada ku degan tahay iyo 4 mitir lagu dhigayo iyo beerta aad qodanayso iyo wadada aad maraysaa aad ku leedahay iyo xafiiska ka shaqeynayso intaas aad ku leedahay waxba reehbel waxaasi waa waxba kama jiraan aqalka aad labada qol aad ka degan tahay iyo 4 mitir lagu dhigi doono lagu aas doono iyo meelaha ka shaqeyn doonto socdaalka ku jirto baad ku leedahay marka waxaan ka wadaa yacnihi dad 9 bilood ku dhasheen dhulka waa la wada leeyahay dhulka cid kama laha cidna cid kama xigsin karto gobol kama fiicna degma kama fiicna qabalay kama fiicna marka waxa weeyaan walaalayaal maanta inaynu qabiil horta ka fogaano sidiisa banaanba inaynu gobol jeclaysi iyo degma jeclaysi qabal jeclaysi aynu ka fogaano inaynu ka fogaano wax kasta inoo kala geyn wax kasta waxaan kala geyn karnaa maxaa kamid ah wixii shalay soo dhaco oo dib aad ugu sii eegno oo wiilkii shalay labadii wiilkii walaalkeena ahaa shalay qoriga loogu soo dhibay ama TV-ga naga caayay ama ina dhibayay oo maanta indhaha gudino ku qasabno inuu deegaan ka qaxo hada fiiriya in deegaan ka qaxo ama aynu abiyuusno ama aynu suxur u galno oo indhaha ku gubno maya loo baahna waxa loo baahan yahay haday maanta isaga saa ku dhahno oo wiilkii shalay loo adeegsaday ama ay maanta ka argoosan ama aynu indhaha u gudino isaguna bari naga argoosan marka maxaa loo baahan yahay midnimadeena intuu hal qof wax naga tabanay midnimadeena meel ma gaariso waxa loo baahan yahay marka kii shalay loo adeegsaday walaalkeena ahaa iyo booliska ahaa ee ehelkeena ugaarsanayay ee cid walba ugaarsanayay ee dhibaatada geysanayay iyo kii arbaabatnaaga iyo kii maleeshiyada iyo kii orolifta iyo kii heegada iyo kii usuya iyo kii dulmadiida iyo kii silaad dhamaanteen maanta inay ummaddu qoomiyadihii dalkaan ku hoos jiray inuu gumaystaa qoomiyad u fadhiyaa inaka oo qoomiyad Soomaaliyeed meel inaynu qoomiyad u fadhiisano kadib markaynu qoomiyad Soomaaliyeed u fadhiisano maxaynu qabsanaynaa xurriyaddii loo soo dagaalamay ee kumaanku wiil u soo shahiideen kumaanku gabdhood ee u soo dhinteen intaas hooyo asayda u soo qaaday intaas hooyo ay u gablantaan ilaa intaas gabdhood ay asayda u soo qaadeen intaas aaba uu gablamay ayaan wali yacnihi natiijo fiican ka gaadhno talaabooyin fiican hore u qaadnay laakiin bartii aynu ku socon wali maynaan gaadhin horta kow halkii sayr ku gaadhi lahayn minigsanayna markaan midowno maxaynu ku dareenayo kale inta aynaan wali halkeen yacni xurriyadeena aynaan qaadan xuquuqdeeni ka hoosakoysay hadday noqoto tii horumarineed hadday noqoto tii nabadgelyo hadday noqoto tii wax wada qaybsi nooc kasta ha ahaatee aynu yacni naga maqan adisaba saynu ku helnay yadana sidaynu xuduudeena ku ilaashan lahayn xuduudeena dhulkeena waa la boobayaa dhulkeena dhulba ku socda nimankan farabadantii dhulkeena way ku socdaan urmada la yiraahdo dhulkeena xaqiiq bay ka tahay waxba ay qosli aan dhulkeena way boobayaan يعني هدي أي ميجو أي من نمط يوالتنمط يدرس كأي كشق يعني درس نمط كلا شقينا لكن هدي جديدا دول كيجو بيع مجالات كيجو إلا تعتبر مؤقلة ما دري لها أما مو يلها أما وحاصرا ضد كنا هدي بقولوا من نمط ولا أي كهر رئيسة وحنا ويسكت يعني مركا ضد بدن بربنا السوق محاول درس رسالة الشعب كان تكررتي waxaan leeyahay walaalayaal waqtiina soo maray waan garanaa waqti aad mudug soo galay waqti mugdiyen soo marnay mugdiga aynu soo marnay ee mudooba sidee ayna ugu noqoneen shalay iyo maanta way isdhaamaanay say berrina maanta ku dhaami lahayd falowgeeda aynu gallo aynu midnimada ka shaqeyno aynu isjacayl ka shaqeyno aynu iscafino aynu jabhadda wadaniga xorinta ogaadeenaya hal la teegaaro waa muqaddas teegaaraheeduna xukuumadda cusub ee Mustafa Maxamed Umar wadana hal la teegaaro qabiilka hal la iska ilaaliyo goboleedka hal la iska ilaaliyo ciddii shalay halganka ka qayb qaadana maanta ka qayb qaato lagu soo dhaweeyo
ciddii kasii qayb qaadanaysana ummadda ha u dhimriso ha soo jiidato sanka iyana cidna kor u taagan maan leeyahay ummaddu ha aad baad sinaato mahadsantiin jaabir walaal waan kaaga mahadnaqayaa nin kaloo culus mar inaan soo qabto runtii risaaladaada waxay midnimo dadku iyo xukuumad iyo shacab iyo mucaarid kulli in maanta sirtu waxay ku jirtaa in la midoobo marka la midoobo ruux walba qol walba naga heebsan Ethiopia naga heebsan Kenya naga heebsan oo Soomaaliya laftirkeeda ee dawladda ah iyo kuwa maamul goboleedyada u ah laftirkeedana waa laga heebsanaya nusaasan aaminsanahay taa ma igu raacsan tahay mudan taasaan ku raacsanay aad iyo aad midnimadaas ku raacsanay boqolkiiba boqol aad baan ku salaamay walaal macaan waan kaaga raali gelinaya macnaheedu dad badan baraan soo qabto dadku way iska dulqaadan yihiin qofka sana waxaan jecelahay inuu soo gaabiyo aad baan ku salaamay walaalahay ay walaal aad baan ku salaamay waxaan soo qabanay gudoomiyaha saad oo aan naftirkiisa u oomanaa afkaartiisa fiican baale ahaada السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. aad baan kaaga qaaday malay maqlaa si fiican malay maqlaa gudoomiye waa maqlaa adigay ururka shiraaj babal aad baad ugu mahadsan tahay invitationkaasi adiga aqbashay iyo barnaamijkaasi aad jaaniska ii siisay inaan ka hadlo marka arrintaa midnimada un baan sii adkayn lahaa wax kale oon odhanayo badani ma jiro waayo maalinba meel bay joogtaa oo maanta halkaynu joognaa waxa weeyaan haddii aynu kala tegno يعني الصومالية ما أنت وحدان وأه جريتان كده حيتان عنصر كالصومالي جريتان كيس وحدان وعينه مدوره وحدو أركي ساعدي منطقة دي عين كنا اللي برق أفكار وفرسته ورمو إنتاس أو دينوت كلا هايستا أو إنتاس أو قبل أو كلا دوان كنا أو تريدو بسا أو بغانتاي أيام كلياتنا نقطة إنكم مركا ديكتو الصومالي دا كوح حيتان كنا بدعاس حيلي جيدا يو هندية يو NFT bay noqotay iyo gobolkeena noqotay email kasta waxaan u baahanahay maanta in aynu midowno oo gacmaha isqabsano haddii kale daad baa inagu soo socda daadkaas oo aynaan garanaynin meel uu ku joogsan doono bilowgiisi waynu arkaynaa laakiin meel ku dhammaan doono ma garanayno marka geopoliticska markaad u fiirsato bariga afrika aad buu isku bedelaya sidii ay wax ahaan jireen ma ahaanayso sidii aynu ku naqaanay ee aynu ku baranayna ma ahaanayso wax badan baa isbedelaya oo muddo 7 bilood gudahooda wax badan baa isku bedelay taas marka innagana waxa laynooga baahan yahay in aynu fikirkeenu halkii hore u joogi jiray u ka duwanaado oo isbedelkaasi aynu la saan qaadno aynu la talaabo qaadno haddii kalese waxaan noqon doonaa kuwa ka tegey oo yacni kuwa ka dhacay oo ka hadhay oo laga badiyey ama kuwa saaqiday baynu u ekaanaynaa markaa soomaalida waxay dantu ugu jirtaa inay midowdo waxay dantu inoogu jirtaa in aynaan inagu hoos isku fiirinin inaan nin walba dhinaceena ka eegno in wixii hore ee ina soo dhex mari jiray aan gadaal iska dhigno kuwii kaleba way iska dhigeen arrimahan jabadahan waddanka ku soo noqdayna waynu arkaynaa oo nimankii oromada jabadoodii sida loo soo dhaweeyey waynu ognahay iyagoo xitaa jabhadaa la soo dhaweeyey jabhad keliya atama waa jabhada iyagu way badan yihin mid way ka badan yihin innagana markaa waxaa laynooga baahan yahay tenaa keliyaad in nin walba halka uu joogo uga sara kaco oo uu soo dhaweeyo magac iyo xilli loo fiirsaday iyo waxyaalahaas ma joogno waxa la yiraahdaa harka gebigu hadduu yimaado harka geedka waa la iska ilooba yaa maamaada marka maanta wixii hore aynu haan jirnay oo dhanba wax ka muhiimsan baa yimiday taas baa inagu khasbaysa markaa in wax kasta oo aynu tirsanayn aynu dib u liqno oo gudaheena ahaa macnaha aynu dib u liqno aynu xilli kale u dhiganno oo arrintan midnimada horta aynu soo horreysiino waayo tusaale fiican waxa kuuga waxyaalaha dhacdhacayay maalmihii ugu dambeeyey falalkii dhacayay ee magaranaysaa labada qowmiyadood walaalaha soomaalida iyo nimankan oromada dhex marayay markaad u fiirsato si ay wax u socdaan yacni cashar badan baad ka baran karaysaa marka intaasaan kusoo koobi lahaa haddii wax su-aalaha adii haysana mudane su-aalo dhowr su-aal baa kusoconaya kolkay ku noqonaya laakiin waan iskaga dulqaadan mudane midnimadaad ka hadashay qoomiyadaha aan nala degan baad ka hadashay midoobeen gaaladoodii muslimiintoodii mucaaradkoodii siyaasiyan caqiidiyan wax kasta ku midoobeen waxay dhaheen xagga noo dhiga qoomiyadnimadeena aan badbaadino oo wadajirkeena aan adkeenno marka annaga haddaanu Soomaali nahay midnimada maxaa nagu adkeeyey inaanu qaadano aanu fahanno oo ilaa hadda loo heliyaa dadyow ama ku abaabulaya qabaa'il ama ku qaraabanaya waxyaalo kale ama wejiyo kale
iyaga maxaad kula talin lahayd midnimaduna sida guud tala guud maxay ku imanaysaa midnimada maxay u baahan tahay midnimadu inkasta hadda jidkeeda hayno asbaabihiina hayno marka midnimadan saan ku heli karnaa insha allah midnimo buuxda wallaahi ani labaan u kala qaadayaayo midna waa waxyaala innaka bannaanka inagaga yimiday oo dadkii isku keendirayay ee inagu dhex jiray ay mar kasta buunbuuninayeen yacni inaan qabaa'illa kala leenahay inaan magacyo kala leenahay inaan gobollo kala leenahay oo nin kastaba meeshiisa inta qol laga dhigo lagu soo yar dul xidhay lagu yidhi adiguna dawlad baad tahay madaxweyne aad leedahay wasiir baad leedahay haddaba uun ma garanaysaa dad isku mid ah oo isku mid ahaataa taas waa wax bannaanka inagaga iman arrin kaloo iyadana waxaa jirta innanka gudaheenna arrintaa gudaheenna markaa waxa weeyaan waa arrin dhaqana oo marka ay meel dawlad la-aan ka timaado amabase nidaamka dawladda uu iska yar burburayo dhaqankaa xoog bata dhaqankii markuu sii xoog batay qabyaalad buu dhaafi waayey oo khayr allaha ee nabadoonnada ah ee ugaasyada leh ee salaadiinta ah ee magaranaysaa garaadada leh in badan bay wanaagga ka shaqeeyeen laakiin haddana looma tababarin iyaga waxa guud shayga keliyaatee u haystaa ee tolkiina kula xisaabtamaya waxa weeyaan waa reerkii maxaad usoo qabatay yacni garaadow wiilkan jaamacaddu ka soo baxay ee wasiirma ka soo dhigtay suldaanow ninkan maxaad u qabatay taasuu iyagu aad ugu xisaabtamayaan arrintaa dhaqankaas markaa waxaan odhan lahaa bal hadda dib ha loo yar dhigo oo dadka da'yarka ah ee ama wax soo bartay ama meelaha kale oo yacni dhaqanka waynu u baahanoo sina ugama tegayno laakiin dhaqankii iyo dawladnimadii waxoogaa haddii la yar kala saari lahaa waxaan isriniyo malaha way fiicnaan lahayd taas baa mar kasta igu soo noqnoqota oo sabab baana jirtaan sidaa u leehayo haddaad u fiirsato odayaasheena maanta khayr laa siiyey markii berigii dhaweyd wasiirada la qaybsanayay oo kale inkastoo aan waanan goobjoog ahayn haddana wararku iska soo daba dhacay waxay sheegayeen in oday walba dee uu inan hoosta ku yar watay inan kastaana uu oday raadsaday yacni dadkunbay si yar kala kaxaynaysaa waa baashiyoo si yar badatay qabyaaladii marka qodobka ugu weyn ee u baahan in wax laga qabtaa waxa weeyaan oo aynu meel iska dhignaa waxa weeyaan qabyaaladii saynu iskaga dhigaynaa marka dhammaantiin waynu garanaynaa inay xun tahay haddana sidii loo dayn lahaa yaa waxay u baahan tahay iyada lafteedu farsamo marka anigu waxay ila tahay haddii waxoogaa roolka uu dhaqanku dawladnimada ku leeyahay la yareeyo oo dawladdii iyo dhaqankii la kala saaro qabyaaladii roolkeegii baa yaraan lahaa taasaa yaan isleehay waa khaldanaan karaa oo bini aadan baan ahay laakiin taasaa yaa niyaddeeda ku jirto oo soo yarayn lahayd mid kalena aynu iska ilowno reer hebel yacni yaa taqaanaadan faraha badan leh ee inagu soo noqnoqota bal mar aynu ku beddelna maxaa taqaanaa hebelow booskaasaa dejisan baahi baa jirta waa loo baahan yahay adigoon oday soo kaxaysanin booskii ma soo buuxin karaysaa aynu taa ku beddello yacni ayaa taqaanaadi maxaa taqaanaa haddaan ku beddelana roolkeygii wuu sii yaraan lahaa haddana marka innaga dhib badan oo dadkiina dhex yaallaa ma jiro colaad ina dhex taallaa ma jirto waa waxaan qabyaaladan uun yaro kharibantay un weeyaan taas unbaa dadkii yacni halkii diintiibay iyo dadkii u gashay halkii dhaqankiibay u gashay meel kasta baashaasaa buuxisay baashaas sidii aynu uga takhallusi lahayn ay u baahan tahay intaynu mar madaxa isgelino malaha si fiican looga tashado baashaas kol shir weyn oo symposium oo kale iyo loo qabto oo la yidhahda ma garanaysaa warniyo maxaa ina mideeyo horta maxaa isu keenaa waynu garanaynaa soomaalinima isu keentaa af soomaali baa isu keenaa mandaqada aynu deganaa isu keenta diin baa isu keenta maxaa ina kala kaxeeya qabyaalad baa ina kala kaxaysa u fiirsa hadda hal shay oo keliyaad yaa ina kala kaxaynaya intii aan ka midaysnayna way badan tahay marka haddii aynu ka wada shaqayno waxaynu ka midaysannahay waxaan aaminsanahay mar kasta in wax naga xumaanaya ay yar yihiin ayaan aaminsanahay taana saasaan kusoo koobi lahay gudoomiye aad iyo aad baa u mahadsan tahay waan kaaga mahadnaqay waqtiga qaaliga aadna siisay aad bulshadaada la wadaagtay runtii wax faahfaahin yar naga siin kartaa gobolka aad ka soo jeedo dhanka iyo Shinile iyo Dirdhaba iyo axwaasha ka jirta iyo dadku say uga indhalaayihiin aad moodo inay horta xamaasad way jirtaa oo waxyaalo kale lagu mashquulsan laakiin dacdada ka jirta maadaama xaga ka soo jeedo adigu faahfaahin naga sii walaal dacdooyinkii ugu dambeeyey ee maalmihii ugu dambeeyey socday kolley wax fiican maanay ahayn oo wax dee ninkii arkaaye caqligiisu nool yahayba ee gobolkeena ka soo jeeda ama meel kaleba haddii qofkii biniaadantinimo ay inuu ku jirtaa uu ka xumaanaya yahay oo magaranaysaa dad walaalaha oo wax alla wax ka dhexeeya anay jirno haddana oo haddana
markaad si u eegtana ciidamadii dowladda oo qaarkood la filayay dee inay arrintii dhexdhexaad ka noqdaan ay dhinac u yara bateen kulley inaan afka ku ballaadhiyo ma jecli wixii ka dhacay meesha way ka dhaceen intii dhimatayna allah ha u naxariisto intii dhaawacantayna allah ha u boyo dhago waayo labaduba waa naga dhinteen kii dhaawacmayna inakumay naga dhaawacmay habase ahaatee meeshii dhib baa ka yara jira arrinta aadka aanan u jeclaysan ilaa shalay toole dadku ay ii soo warinayeen waxa weeyaan waa master balaan la sheegay in laga sameynayo dirdhabo oo ku fudi doono ma garanaysaa gobolkan city iyo shineele iyo xaggaas oo waa wax u eg master balaankii waagii ugu horreysay cabdisaabo lala tegay oo qomidda oromadu ay aadka uga kacday oo yacni kabriidka iyo baansiinka u noqday wixii etoobiya ka dhacay wax sidaasoo kale u yara eg ayay dadku ii soo warinayeen waxaanse filayaa oon ku rajo weyna inaanay socon doonin taas inaana shaqayn doonin oo yacni waxaan ayna dadka meesha degan raalli ka ahayn oo lagu khasbi karaya inay jirto malayn maa xilligeedii taasi soo dhammaaday ayaan filayaa waxaan ka rajaynaynaa markaa dowladda maanta taagan ee waddanka maamulaysa wixii dadkooga ay ka kaceen ay ka biyadiiyeen in dad kale lagu dayo oo walaalihiina waa wax iyaduna laga fiican yahay oo taasina wax aan ka filayna maaha haddiise ay dhacdo kulley dee wixii hore u socon waayey dibna inaan u soconayn unbaan filayna haddii la yidhahdo marka arrintaas ayaa ugu xasaasisan haddi ahaanse kulley maanta iyo xaalku iska deganaa adigu waa uun kulley waagii baryaaba waayihiisuu leeyahay laakiin maanta ilaa maanta intaan ogahay kulley wax dhiboo laga soo wariyay ma jirin aduu shalay barakac baa jiray dad wax la yeelay baa jiray daraad oo kale dad wax la yeelay baa jiray tii ku horreysay maalmo aduu dhib badan wayna soo mareen oo ilaahay waxaan ka rajaynayna aanan dibna noo soo marin haddii ilaahay dhahdo aad iyo aad u mahadsan tahay guddoomiye waan kaaga mahadnaqaya waqtiga qaaliga aadna siisay runtiina waanu ku duceynaa guulaysan sidaas ku xilqaantay sharafta leh ee karaamada badan ardaydaada waanu kaa baranaynaa halgankay aad baan ku salaamaya ayo walaal adiga mudan aad baad mahadsan asalaamu calaykum gudoomiye siraaj ku mahadsan yahay runtii si fiican baan maxamed sheekh cumar waxaan soo qabanayaa gudoomiyaha talada Finland